halkan waa channelka Gunta wararka saxbiil u dargaroobayna daawatan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn channelka Gunta idin hayna waxa kamid ah kooxda dabagalka qaramada midoobay la yiraahdo monitoring group waxay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in 30 milyan oo dollarka Mareykanka in dawladda Soomaaliya ku bixisay doorashadii ka dhacday Baydhabo Sheekh Shaakir oo lagu rasaaseyay Dhusamareb iyo xiisad culus oo halka ka taagan ciidanka al-sunna la wareegay qaybahan magaalada ciyaar fiinaal ahayd oo xalay la filayay Muqdisho ee lagu qabto san la yaab leh u baaqatay booliiska Soomaaliya oo Kenya u gacan geliyay laba qof oo si weyn loo baadigoobay taliye Sadaq Joon oo dacwada haliska ah loo gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo muxuu sameeyay darawal rakaabkiisa ka badbaadiyay al-shabaab qodobadaas kuba kaliya saaxiibayaal wararkeena aad ku taawado doontaan ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe de gambareel kana taabo saaxiibayaal say mar walba kugu soo dhacaan wararka iyo waliba warbixinada gaarka halkan aan soo gelin waana subaxnimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha 10 sanadka 2019 warbixinta ugu horeysa warkeena hadda aan ku hormarno kooxda dabagalka qaramada midoobay ee loo yaqaan monitoring group waxay soo saareen warbixin dheer oo ay kaga hadleen doorashadii ka dhacday koonfur galbeed oo ay sheegeen in dawladda Soomaaliya 30 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku qarash gareysay sidii u soo saari lahayd Cabdicasiis Laftagaraan oo madaxweynaha hadda maamulaya guddiga khubarada kooxda dabagalka qaramada midoobay ee yiraahdo monitoring group waxa ay si rasmi ah shaaca ugu qaadeen in dawladda Soomaaliya ay musuqmaasuqday doorashadii madaxweynaha koonfur galbeed ee Baydhabo ka dhacday warbixinta guddiga loo gudbiyo golaha ammaanka balse si gaar ah u helay channelkeena ayaa sheegaya in xukuumadda Soomaaliya ay laaluushtay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si ay u doortaan musharaxa dawladdu ay wadatay ee ahaa Cabdicasiis Laftagaraan xubnaha baarlamaanka ayaa helay lacag u dhaxaysa 20 ilaa 30 kun oo dollarka Mareykanka midkiiba oo la sii kaas codkiisa musharaxa ugu codeeyay sida warbixinta lagu baahiyay 28 kamid ah xildhibaanada koonfur galbeed ayaa warbixintu sheegtay in bishii November sanadkii 2018 la geeyay magaalada Muqdisho midkiiba waxa la siiyay xiligaasi lacag gaaraysa 5 kun oo lacagta dollarka Mareykanka loo hormariyay ayadoo loo ballan qaadanay in lacag u dhaxaysa 20 ilaa 30 kun oo dollarka Mareykanka la siin doono waa hadii xiligaas uu guuleystay Cabdicasiis Laftagaraan codkiisana ay siiyaan guddiga khubarada ayaa sheegay in sidoo kale la helay cadeymo muujinaya in sarkaal maaliyadda ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo lacagtan boqolaalka kun oo dollarka Mareykanka ku wareejiyay wasiir ka tirsan xukuumadda oo wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed si loo qeybiyo xildhibaanada warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in 15 qof oo shacab ah lagu dilay magaalada Baydhabo kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay xirtay musharaxii ugu saameynta badnaa ee xiligaasi Muqtaar Roobo taas oo dhalisay rabshado iyo carag ka dhalatay dalkaas ayaa warbixintu ku sheegtay inay fuliyeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed dawladda Soomaaliya ayaa hore loogu eedeeyay in awood iyo waliba awood ku muquunisay maamulka koonfur galbeed si ay madaxda ugu dhigto shakhsiga ayadu ay wadatay ugu dambeyn qorshahaas uu noqday mid lagu guuleystay maadaama meesha laga saaray ninkii uga awoodda badnaa koonfur galbeed ee Shariif Xasan Sheekh Qaadan sidoo kalena daaqada ama xabsiga loo dhaadhiciyay musharaxii kale ugu saameynta badnaa Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur warbixinta ka soo baxda kooxda monitoring group oo dhowr page ka koobnaa qayb kamid ah channelkeena YouTube-ka oo helay ayaa sidoo kale waxa loogu digay dawladda federaalka Soomaaliya in ay faragelin wixii koonfur galbeed ka dhacay kale in ay ka geysato magaalada Baydhabo iyadoo dawladda laga dalbaday in ay madax banaani ay siiso maamulka iyo waliba xubnaha maamulada kale dalka ka jira anaga warkii ugu dambeeyay Dhusamareb dagaal halka ka dhacay iyo dhaqdhaqaaqyo ciidanka al-sunna oo durba la wareegay meelo muhiim ah ayaan eegnaa xiisada Dhusamareb ma ahan wax sahlan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ku sugan magaalada Dhusamareb ayaa xalay waxa ay rasaas ku fariin madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan sida ilaahay uga galay channelkeena u sheegeen Sheekh Shaakir ayaa xilliga la rasaaseynayay ku sugnaa afafka hore madaxtooyada galmudug ee loo yaqaan inji oo haatan ay ku sugeen ciidanka al-sunna xarunta inji waxaa degan hogaamiye sare oo ka tirsan ururka al-sunna wal jamaa iyo qaar ka mid saraakiisha al-sunna iyo guddiga doorashada ay magacaabeen Sheekh Shaakir iyo xubno kale siyaasiyiin oo taabacsan al-sunna Sheekh Shaakir ayaa xilliga la rasaaseynayay waxa uu taagnaa goob banaanka ka xarunta waxaana qayb uu ka xubnaha ku sugnaa xarunta inji halkaas oo ay ka socotay dhismaha difaaca
ilaalinta xarunta iyo sidoo kale la kulanka guddigii isaga uu magacaabay. ilaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay rasaastan ay xalay ka dhacday ciidanka dowladda Soomaaliya ku furan madaxa xukuumadda waliba ma jirto labada dhinac wax wara oo ka soo baxay arinta ku saabsan. waxaana heegan la geliyay dhammaanba ciidanka dowladda ka amar qaata halka ku sugan. sidoo kale waxa heegan la geliyay ciidanka al-sunna ayna ka amar qaata ku sugan gudaha magaalada Dhusamareb ee xarunta gobolka. waxaana kacsan xaaladda Dhusamareb ayada sidoo kale la tilmaamayo in ciidamo badan oo ka tirsan ururka al-sunna ay ka yimaadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan ee matabari deegaano kale ee gudaha Dhusamareb soo galeen kuwaas oo qayb ahaan la wareegay xarunta degmada bara control muhiim ah iyo waliba meelo kale oo ciidanka al-sunna ay la wareegeen. xiisada ayaa mid aad u kacsan mana jirtay ilaa hadda war intaas dhaafsiisan oo warbaahintu ay siiyeen xubnaha al-sunna iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsan qalalaasaha iyo xiisaha halka ka jira. waxaan eegaynaa warbixin ku saabsan booliiska Soomaaliya gacanta loo soo gacan galiyay xubno ay baadi goobayeen oo Kenya ay qabatay laakiin xalay Muqdisho maxaa ka dhacay. ciyaar finaal ahayd oo ay wada ciyaari lahayd laba degmo oo degmooyinka Dharkeley iyo Waaberi ayaa baaqatay kadib markii la waayay guud ahaanba korontadii. wararkii ugu dambeeyay xalay aan ka helina magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay baaqatay ciyaartii finaalkeeda degmooyinka gobolka Banaadir dhexmari lahaa degmooyinka Dharkeley iyo Waaberi. ciyaartan oo xalay ka dhici lahayd garoonka Injineer Yariso degmada Cabdilcasiis ayaa la filayay inuu ka soo qayb galay wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr ayaa baaqatay kadib markii ay tagtay korontada wax ka badan saacad gudaha garoonka waa mugdi oo hal saac in ka badan korontada ay maqneed taas oo shaki cabsi badan dhalisay. korontada markii ay dib u soo laqatay ayaa waxa lagu dhawaaqay in ciyaartu ay baaqatay maadaama Rasaar Kheyr uu ka cudur daartay inuu tago garoonka baqdin amniga awgeeda. warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegay sababta Rasaar Kheyr ugu baaqday ay tahay sabab dhanka amniga ah ay jirtay iyo waliba walaac badan dhanka amniga laga qabay. qaar kamid ah dadka halkaas ku sugan ayaa channelka lagu sheegay in korontada tagitaankeeda ay ku dhex jireen kaartooyin farsamo oo la doonayay sida ila xogaal ay sheegeen in falal amni darro garoonka gudihiisa laga fuliyo taasoo keentay in guud ahaan ciyaarta la baajiyo cabsi darteeda. warar kale aan helin ayaa sheegaya inay baaqatay in uu baaqday xitaa wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiri iyo xubno kale oo lagu casuumo halkaasi tagi rabo kuwaas oo ayna baaqadeen. telefishinka ayaa laga baahiyay amar ka soo baxay taliska booliiska in guud ahaanba la joojiyo ciyaarta waxaana la codsaday in ciyaartaasi markale la ciyaari doono. ma jirto wax wara ka soo baxay xafiisyada xiriirka kubadda cagta gobolka Banaadir iyo kan dalkaba oo ku saabsan sababta ciyaarta loo baajiyay waqtiga la ciyaari doono laakiin arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo walaac dhanka amniga laga muujinayo. booliiska Soomaaliya waxaa loo soo gacan galiyay laba qof oo ay si weyn u baadi goobayeen. booliiska Soomaaliya ayaa laba qof oo la rumeysay in ay ka tirsan kooxda al-shabaab ay gacanta u soo galiyeen mas'uuliyiinta Kenya sida uu baahiyay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay wadankaasi Kenya. labadani qof la rumeysay in ay Soomaali ahaayeen balse ay saameyn weyn ku lahayn ururka al-shabaab ayaa ayagoo baxsanayay booliiska ay sheegeen inay ku soo qabteen gobolka waqooyi bari ee wadankaasi Kenya sida booliisku ay sheegeen. warbixinta booliiska ayaa waxa lagu sheegay labadan qof oo loo soo gacan galiyay booliiska Soomaaliya waxa la soo qabtay qiyaasta 12 subaxnimo Arbacadii kadib waxa loo soo qaaday dhanka magaalada Gaarisa halkaas su'aalo badan lagu weydiiyay. baaritaan dheer kadib ayaana la sheegay in loo soo wareejiyay dhanka booliiska Soomaaliya. taliyaha booliiska ee gobolkaasi Mandera ayaa waxa sidoo kale uu sheegay labadan qof ay heleen macluumaadkooda ku saabsan inay wateen hub ayna doonayeen falal amni darro inay ka sameeyaan magaalada. wali waxa socda baaritaano kadib waxa warbaahinta la wadaagi doona sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya ay yiri raggan iyo qorshe ay halka ay u gaareen waxay ka hayaan al-shabaab. booliiska Kenya ma aysan shaacin halka Soomaalidan ka tirsan waa labadan qof ee Soomaalida ee ururka al-shabaab ka tirsanaa qaabka ay ku qabteen iyo ujeedkooda iyo qorshooda wuxuu ahaa. dowladda iyo waliba booliiska Soomaaliya wali dhankooda kama hadlin shakhsiyaadka loo soo gacan galiyay ee gacantooda ku jira markaan. taliyihii booliiska ee gobolka Banaadir taliye Sadaq Joon ayaa dacwad ka dhana loo gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay dacwadaas ku saabsan wararkii lagu qaaday gurigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame taasoo gaartay heer in ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markan gacanta u gasho.
bandhiga VOA-da ayaa loogu baahiyay eedeymaha loo haysto taliya Sadaq Joon iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii hore ee November sanadkii hore ayaa markii warbixin uu qortay kooxda qaramada midoobay qaabilsan dabagalka arrimaha cunaqabateynta Soomaaliya ee loo yaqaan Monitoring Group waxa ay qayb kamid ah warbixintaasi ku jirta eedeymo loo soo jeediyay taliyaha booliiska gobolka Banaadir General Sadaq Joon laanta afka Soomaaliga VOA-da ayaa warbixin gaar ah ka sameysay eedeymahan waxa warbixinta qayb ka ahaa mid qarsoodi ah oo lala wadaagay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana eedeymaha kamid ah inuu hogaaminayo weerarkii lagu qaaday guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur bishii December sanadkii 2017 weerarkaas oo lagu dilay 5 kamid ah ilaalada siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qareenada u doodayay General Sadaq Joon oo lagu magacaabo James Smith ayaa u sheegay in aan wax lug ah ku lahayn weerarka isla markaana aan qayb ka ahayn ciidankii ka amar qaadanaya taliya Sadaq Joon isla markaana amarkan uu bixiyay taliska dhexe ee hay'adda nabad sugidda xilligaasi warbaahinta VOA-da warbixintan ay baahisay sidoo kale waxa laga soo xogtay in taliye xilligaasi ahaa taliyii hore nabad sugidda Cabdilaahi Sambalo shaqadiisa wax laga weydiiyay ayuu sheegay inuu wax badan kala socon qorshaha weerarkaas xilligaana uu dalka uu ka maqnaa Sadaq Joon ayaa markan waxa uu wajahaya dacwado waaweyn oo kaga imaanaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo loo haysto eedda la xiriirta weerarka sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir qudhooda waxa ay sheegeen inay diyaariyeen gal dacwadeed ka dhana taliya Sadaq Joon oo la wadaagi doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixintana ugu dambeysana muxuu sameeyay darawal rakaabkiisa ka badbaaday weerar al-shabaab ay doonayeen in ay ku qaadaan gaari rakaab ay saarnaayeen muwaadiniin u dhalatay wadanka Kenya hase yeeshee darawalkii wada gaarigaasi si cajiib ah oo farsameysan u badbaadiyay ilaa 8 qof oo u dhashay wadanka Kenya gudoomiyaha gobolka Mandera ayaa waxa uu sheegay in darawal Soomaali ah oo Kenyan ah uu badbaadiyay nolosha 8 qof oo muslim ah oo Kenyan ah kuwaas oo al-shabaab u gacan gali rabay hadii ay qabtaan ay tooga lahaayeen waxa uu sheegay in dadkan oo shaqaale ka shaqeeya dhismaha ay ka soo baxeen magaalada Ceelwaaq ayuu ku sii jeeday xaafadooda waxa dhaxda u galay dabley hubeysan ka tirsan al-shabaab oo lagu qiyaasay in tiraanay gaarayaan ilaa 20 kamid ah dagaalyahano hubeysan ka tirsan ururka al-shabaab darawalka wada gaariga hoomeyda ah ayaa la sheegay in al-shabaab ay amreen inuu istaajiyo si loo hubiyo cidda darawalka ah waxa uu qaboojiyay gaariga amarkii ayaa la siiyay uu qaatay balse gaariga ayuu mar kaliya xawaarihiisu xoojiyay taasoo keentay in xawaare sare uu kontaroolka al-shabaab qaab awood kaga soo gudbo sida kaartada ama farsamada uu sameeyay darawalka gudoomiyaha ayaa amaan u jeediyay geesinimada darawalka Soomaaliga ah ee uu badbaadiyay xubnaha Kenyaanka ay saarnaa gaariga waxaana la sheegay hadii ciidamada al-shabaab ay qaban lahayn raggan ugu yaraan ay toogan lahaayeen gudoomiyaha Mandera ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu sheego magacyada darawalka iyo waliba xubnaha kale Kenyaankaas waxa uu tilmaamay in darawalka uu badbaadiyay nolosha 8 qof oo u dhashay wadankaasi Kenya al-shabaab ayaa hore sidaan oo kale waxa toogasho ku dileen gobolka waqooyi bari Kenya 10,000 oo muslim ah oo Kenyan ah